سودو dhacdadii afaraad mise saddexaad aan u maleynaa inay tahay oo ka dhacayso dalkan Jarmalka inta sanadkan 2025 ay bilaawatay. habeenka sabtiga soo galeysay maalinta Jimcaha fiidkii waxaa magaalada Berlin dhibaato ku geystay nin lagu sheegay inuu yahay Syrian oo daadiisan lagu tilmaamay inuu yahay 19. ninkaasna uu ahaa nin magangelyo doona xitaa uu haystay magangelyo la siiyay. okay, ninkaas ayaa wuxuu dhaawac u geystay bartamaha Berlin ama safaaradda Mareykanka agteeda nin ka imaaday dalkaas Spain lagu sheegay daadiisa 30 sano jir in uu toori qalkaas ka geliyay. ay booliska gacanta ku qabteen asigoo gacmihiisa ay dhiiga leeyihiin iyo mindidii dhibaatada uu ku geystay asoo wato. ninkaas ayaa waxaa la sheegay markii boorsadiisa la baaray in laga helay sajaayad, okay, gibituq oo gibitebi iyo in laga helay kitaab Qur'aan. sidaas darteed ninkii waxaa lagu xiriiriyay inuu dhibkan u geystay si argagax leh ama si alqaacidanimo leh. okay, inay islaamnimada dabada ka riixaysay. almuhim waxay ahayd magaalada Aschaffenburg maalmo ka hor. okay, isbuucyo ka horne dhibaato waxay ka dhacday München, haddana Berlin ayaan marayna. almuhim ninkii maanta booliska gacantiisa ku jira asoo cadeemihiina lagu haayo gacmihiisa dhiiga lahaa iyo maxaa la mindidii dhibaatada uu ku geystay.